shalay gelinkii dambe roobab lixaad leh ayaa ka da'ay Baydhabo waxa ay geysteen khasaare nafeed kadib markii daadad ka soo rogmaday dhanka Maayafuulka ay sababeen inay dilaaciyaan dhulka ilaa iyo joog le'eg 3 mitir oo dhulka hoos u qodan taasoo ay ka geysteen toga loo yaqaan Bukriyey oo ku yaala xaafadda Bukriyey ee dhacda cirifka Koonfureed ee magaalada Baydhabo. Booshan oo laba dhan ka go'day ayaa biyo dhaceeda uu ku qulqulay dooxooyinka yaryar ee xaafadaasi dhexmara iyagoona ay sababeen in ay qaadaan wiil yar oo 9 sano jir ah oo markaasi dugsi ka yimid isaga iyo walaashiis ka weyn kadibna biyihii ay la tageen wiilkii yaraa sidaana uu ku dhintay. wiilka ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Jikow. qoyskooda ayaa ahaa kuwa degan xero barakac oo lagu magacaabo Iskariis. mar aan booqday kaamka ayaan kula kulmay wiilka geeriyooday hooyadiis iyo aabihiis iyagoo kolkaasi ku sugan aqalka oo ay dad badan isugu yimaadeen halkaana ku qabay tacsiyo. inkastoo hooyada ay kari weyday in ay la hadasho warbaahinta ayaa haddana waxaa ii waramay aabaha wiilka oo lagu magacaabo Cali Cabdi Jikow oo iiga waramay sida ay wax u dhaceen. dugsi ku kooy dugsi ku kooy biyo moodi ma dadkii walaalisa la jartay wala balas aku hirti iyo miya aku tabay aysan kooy hadis mundin kooy iyo obsatiyaari biyo gel aadin batay moodi di nugdi ya aadiya biyo iskala dheen suuna biyo ya aadiya nugdi biyo iskala dheen suuna هذا يوم لا يريد تنبيوس كردينغاري سون دبر شو كوجي سيده بقول لك قالي مر ألو قرنا يوم وقت جي هالليدي لان جي قبل لان روجا وملا سون إلهي اللي عندنا كوال شيء صحيح. horjoogaha kaamka oo lagu magacaabo Isaaq Macalin oo aan isna goobta tacsiyada kula kulmay ayaa iiga warbixiyay dadka degan kaamka dhibaatada ay ku qabaan biyo qulqulka Booshan xilliga uu roobka da'ayo oo inta badan halis ku ah in ay dadka isaga gudbaan gaar ahaan caruurta gediga kale u aada dugsi quraanka oo mararka qaar ay dhici karto sidii shalay oo kale iyadoo kaamka dad weyn aysan joogin caruurtana ay biyaha daadka la tagi karaan. إن داد أو بحلم بأولادي سديد الناس بأنك بنا هذا إسلام داد أو نو أوي كور دكسير معلم كي أو أولادون والندكوا والناس كور أرلاد داد كي داد أو أرد قرآن كساو شوغان لكن معلم كي دادو بني آدم إذا أنباهن أولاد اللي ما يبقى أنباهنها دغالة markuu maadankii dadkii maadaama awlaad dhalata iskoolka dada baasis dibahay saas oo kale dad islaam ah oo arday waliba may baan baahnaa noo dhiib maadlamiinta oo awlaadun dugsi indhikaayan oo walnaninka dhis walnaninku dhiib un tabartaan laakiin may baahna dad onnay aawiyo arday waliba noo galan qobad eedeedan ka baahna. dilaaca ka muuqda dhulka iyo boholaha ka sameysmay iyo dhulka oo hoos u go'aya waxa ay muujinayaan in roobabka lixaad kale ee hadda ka da'aya Baydhabo haddii aanan la helin gurmad biyo xireen loogu sameynayo daadadka ka soo rogmanaya toga Maayafuulka ay keeni karaan dhibaatooyin soo gaara barakacayaasha oo aan haysanin guryo fiican oo rajmi leh celin kara biyaha daadaya ee dadka la tagi kara.